Asalaamu calaykum. Sheekadeenna maanta waxay ku saabsan tahay odaygan ayaa waxa uu guursaday laba gabdhood. Gabadh waxay ahayd gabadh iska xanuunsata, waxayna ahayd tiisa koobaad. Ta kalena waxay ahayd gabadhii dambe ee gabadha ka dambeysay. Gabadha markuu guursaday markiiba gabadha ma ay helin caruur, waxayna noqotay gabadh iska xanuunsanaysa mar walba. Caruurtana ma ay helin ilaa intay weynaatayna caruur ayay raadin jirtay. Gabadheedana waxa ay dhashay xilli dambe oo iyadoo weyn ayaa ay dhashay. Laakiin gabadhan yari gabadheeda waxay dhashay xilli hore. Odayguna mar walba waxay ahayd gabadha islaayaan, waayo waxay rabtay inta faraha badan leh inayna caawin gabadhan xanuunsanaysa. Markaasuu ku oran jiray gabadhan caawi oo gabadhan la joog. Markaasay ku oran jirtay maanta aniga ma lihi, iyada ayaa u leh idii gabadheedu ha wada hagaajistaan. Inta badanna gabadha xanuunsanaysa ayay dagaal kula jiri jirtay. Waxayna ahayd gabadha naqani inay hooyadeeda xanuunsanaysa iyo aabaheed badar yeesho intay islaanta kala imanayso. Odaygan gabadhan waxa uu guursaday siday caruur fara badan ayadu u keento. Laakiin iyadu waxay noqotay mid ku faraxday ilmaheedii koobaad oo wax dambe aan dhalin oo gabadha kalena ka hor dhashay. Gabadhii dambe inateedii markii ay weynaatay ay islaantii dambena waxa ay dhashay inan kale. Iyaduna aad bay ugu faraxday inay inan dhashay. Odayguna waa uu ku faraxsanaa, laakiin xanuunkii kama uu tagin. Odaygana daryeeli jiray. Gabadhiisa markuu la hadlo uu ku yiraahdo orod haddaba cuntay noo samee. Gabadhii waa ay xanuunsanaysaa. Ilmihiina waa aniga adigu haye, orod adigu cuntaday noo samee. Ay waxay ku oran jirtay maanta yadaa u leh ee soo joosi. Aniga ma aha maalintaydii. Anigu gabadha iyo hawsha iskuma wada hayn karayo. Gabadhayduna aad bay u yartahay. Orod iyada ku dheh soo tooso kaale kare. Markaasuu ku oran jiray gabadhan kale waa miskiin kuma raadsato, laakiin adigu waad raadisaa. Iyadu way xanuunsanaysaa oo inta faraha badan leh kiniinka iyo hurdo ayay u dhaxaysaa. Orod waxay noo qabo oo gabadha miskiinka ha raadinin. Laakiin xaaladeedii gabadha way ka sii darisay. Gabadhuna waxay ka orkortay aabaheed. Aabaheedna mar walba hooyada kale gabadha u ah iyo gabadha dhashayba waa uu calaalin jiray. Wuxuu ku oran jiray cunto inoo kariya, halkee ayay tagaysiin. Iyaduna ifka ayay ugu necbayd maalintayna iyadu u lahayd. Islaantii markii dambe xanuunkii baa ku soo kordhay. Dawooyin fara badan oo loo qorayna waxba waa ay ka qaadi waayeen. Markii dambe laga yaabay dhakhtar ayaa loogu yeedhay. Dhakhtarkiina waxa ay ku tiri markuu weydiiyey waxa haya ayuu ku yiri maxaa haya. Maalinba maalinta ka dambeysa waa ay ka sii daraysaa. Waxa ay ku tiri anigu waxba kama garanayo. Waxayna u baahan tahay in la baaro ee waxaad geysay meelaha lagu baarayo intayna xaaladeedu ka sii darin. Waayo maanta si xun ayay xanuunsanaysaa. Imikana waxaan siiyey kiniin garaacbayna ee waxaad geysin dhakhtarada. Odaygii iyo inatii yareed maalmo dhan ayay dhakhtar geynayeen ilaa markii dambe ay islaantii ay dhimatay. Ay xanuunkii faraha badnaa ay xanuunsanaysay ay sidii ku dhimatay. Gabadheedii in fara badan ayay u murugootay, laakiin markii dambe gabadhii waa iskala qabsatay. Waayo aabaheed baa ilaa maalinta yareed ilaa maalintii hooyada dhimatay soo korinayay. Islaantiina waxay noqotay islaan sidii hore dhaamta oo labadii gabdhood si fiican ula wada hadasha. Odayguna aroortii wuxuu tagi jiray shaqada. Islaantu markay aragto islaan la qaybsanay inay guriga joogto ayay gabadheedii ku tiri kaale haddaba adigu ila qaybso. Adiga ayaa rabaa inaad meeshii hooyada gashid oo wax walba hooyada qabanaysay aad qabatid hadhow toonada shaqada kale aniga iga tagtid. Gabadha kale laakiin way ogolaan jirtay waayo miskiin ayay ahayd sida hooyadeedoo kale. Iyadoo maalin markuu aabaheed soo noqdo ayaa wuxuu ahaa inuu casharka u mariyo iskuulka sidayna u iloobin. Islaantii ayaa qaylisay waxayna ku tiri kaale hablaayo. Markaasay ku tiri waan u tagayaa aabbo oo waxay ii yeeraysaa hooyo. Markaasuu ku yiri sooniga casharka u marinaya maxaa ay ka rabtaa. Gabadheedan telefoonka haysata ma ay u tagto ay ku tiraa waxay qabo. Fadhiisa aniga ayaa la hadlayay. Odaygiina wuxuu ku yiri gabadhaada halkan ku daawanaysa moobilka kaale ku tago ii shaqay. Gabadhan kale waxbaan u marinayaa. Gabadhuna waxay aad u jecleed markuu aabaheed difaaci uu ku leeyahay markaad wax akhrisanaysid cid uma kici kartid waayo gabadhan way kugu shaqaysanaysaa. Islaantu waxa ay samayn jirtay marka uu ku yiraahdo inataada kale u yeedhay ay koorin jirtay. Yadana waxba u diyaarinaya adigina wuu ku necebiyay mar walba uu doonaa in aad u shaqayso. Laakiin odaygu mar walba labada gabdhood wuxuu ku dardaari jiray inay labadooda kaliya
ay hadhow toole isku hari doonaan oo inay is ilaashadaan ay tahay. Maalinta wixii ka dambeysay labada gabdhood way isku soo dhawaadeen. Odayguna wuxuu ahaa mid u fasaxa inay isla soo ciyaaraan oo ay isla soo socdaan oo banaankana isku raacaan sida isku difaacaan. Laakiin islaantu waxay ku tiri aabihiin xaflad ayuu inkaxinaya, waxaa samaysaa gabadha toobka quruxda badan la adigu ka dooro, iyadana ay guddaa, aniga ayaa meel ku xiri doona. Iyada ayaa kaa yar, waxaa laga yaabaa inay xaafadda laga geynayo iyada jeclaato oo hadhow toolana adigaba lagu arki waayo. Odaygii gabdhihiisii waxa uu keenay toobab aad u qurqurux badan, waxa uuna ku yiri xaflad ayaan inkaxinaya. Gabdhihii toobabkii way ku farxeen, mid walba kii cajabisay tooba ayaa ay qaadatay. Waxayna bilaabeen maalintii xafladda ay gaadhay inuu qof walba si fiican isku hagaajiyo. Qolkooguna wuxuu ahaa qol keliya, labadii gabdhoodna dharkii oo quruxda badnaa ayaa ay soo xidheen. Markii dambena hooyadood ay u yimaadeen iyo aabahood. Odaygii ayaa ammaanay labadii gabdhood. Islaanta ayaa ku tiri gabadhii kale markay aragtay inay nateeda ka qurux badan tahay, adigu kaali waxbaan kuu soo sheegayaa, waxbaa kaa dhiman oo aan kuu soo xidhayaa. Waxaa soo ilowday baan malaynaya dhagihii. Gabadhii waa ay raacday iyadoo faraxsan, markaasay ku tiri halka waxaad ka soo saarataa dhagaha oo dhagahan xidho, waayo dhagaha ayaa kaa dhibnaa. Gabadhii waa ay faraxday ximoodisay run, laakiin markay jeesatayba gabadhii islaantii waa ay kala tuurtay. Waxayna geysay meesha guriga lagu gurto alaabaha, wayna xidhxidhay. Gabadhii waa ay oyday, waxay ku tiri ii banee, waxaan rabaa inaan aabbo raaco oo aan tago. Markaasay ku tiri waxaad rabtaa inaad gabadhayda ka qurux badnaatid oo gabadhayda la arki waayo. Odaygii ayaa idhi hooyada iyo gabadhii way habsaameen, maxaa dhacay oo gabadha ay u soo bixi lahaday, ma intaasay dhagihii qaateen. Markaasuu la hadlay, markaasay ku tiri iska socda idinku, aniga ayaa soo kaxaynaya, dhagihii way cajabin waayeen oo dhago kale ayaan u soo iibinayaa. Odaygii baa ku yiri hooyada waxay tiri dhagihii wuu cajabin waayey gabadheeniye, inamar iyada ayaa soo kaxaynaysa. Gabadhii waa ay murugootay, waxayna ku tiri aabbo hooyaday dhagowma soo gelinayso, laakiin qolkii xashiishka ayay gabadha ku xidhay, waayo waxay rabtaa inayna iga qurux badnaan xafladda geynays. Markaasuu ku yiri oo adigu maxaad igu sheegi weyday mar hore oo aad igu odhan weyday waxaasay rabtaa inay hooyada gabadha ku samayso. Markaasay igu tiri iyada ayaa igu tiri hay sheegin, laakiin adiga waxaan kuugu sheegay sidaad gabadha u badbaadiso. Odaygii isagoo cararaya ayuu qolkii xashiishka lagu guriyey ayuu imiday siduu ogaada gabadhii halkii la geeyey. Laakiin islaantu waxay kaga hor timiday albaabka. Markaasuu ku yiri aaway gabadhaydii aaway, ma waxaad geysay xafladdii? Markaasay ku tiri haa, xafladdii ayaan geeyey. Markaasuu ku yiri beenaley, qolka xashiishka ayaad ku xidhay, gabadhaadaana ii sheegtay inamar iyo nikada ka soo fur. Gabadhii xidhxidhan markuu arkay ayuu ku yiri adiga waxaan kugu sameeyay garan maayo. Gabadhiina odaygii wuu ka furfuray, inantiisiina waa uu ku xidhay, gabadhii kalena wuu ku xidhay, islaantiina wuu ka furay. Maalinta wixii ka dambeysayna odaygii islaantii ciqaab kama uu kala joojin jirin, waxa uuna tusi jiray inuu isagu leeyahay guriga uu siduu doonana u maamulanayo. Sheekadeeniina intaas ayay ku dhammaatay.